dawladda waxaan aaminsanahay in laga gardaran yahay oo wixii ay qabatay inta la xaqiray lagu daboolay wax beenaho aan jirin oo dadka lagu marin habaan lagu jahwariirnay waxaan aaminsanahay arintaas inay ka dambeeyaan dad dana gaara leh oo kursi waayay oo nabadda ogolayn oo dawladnimada ogolayn oo horumarka ogolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed bal ilaahay baan idinku dhaarashay ee waxa ka dhibka badan maxay ahaayeen qaraxyada aad ogeydeen oo ummadda ragaadiyay oo hal qof oo kaligiisa oo walwal aan ku naaysan Muqdisho joogin hadii laga bogsooday maanta 60% laga bogsooday oo laga yaabo bil ama 2 bilood inaan qaraxba dhicin hadeerna aan u sii socono intaas ka sii wanaagsan hadii Allah idmo war ma waysan mudnayn ilaahay inaan ku mahadino ma waysan mudnayn dadkii ka shaqeeyay inaan ku amaano wariyaa Soomaali hadana runta aan sheegno war ilaahay aan ka baqno dadka najaah wareerinaya oo 27 sano rabaan inay dhiiga dadka Soomaal ka ganacsadaan qaraxyada waxaan aaminsanahay markii qaraxyada suuq waayeen oo loo waayay meelay maraan oo baareen qaraxyadii dadka ka shaqeeyay qaraxyada inay social media waliba baraha warfaafinta baraha warka lagu fidiyo oo bulshada inay adeegsadeen aaminsanahay waxaan aaminsanahay kuwa qaraxyada sameeyay markii qaraxyada baareen ay soo waayeen inay dagaalka u bedeleen baraha bulshada si dawladda iyo shacabka